maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi Hiiro oo weheliyo agaasimaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali Daalin oo warbaahinta kula hadlay xafiiska dawladda hoose ee degmada Burco ayaa jawaab ka bixiyay hadalkii xildhibaan Axmed Xiis oo maalinimadii shalayta warbaahinta kula hadlay magaalada Burco. maayirka ayaa sheegay inay kala tashadeen qaybaha kala duwan ee bulshada taariifada dawladda hoose ay ka qaadayso bulshada. taariifadan ayaa wada martay sida uu sheegay maayirka degmada Burco habraacyada golaha deegaanka ee degmada Burco isagoona maayirku bulshada u bidhaamiyay cashuurta ay qaadayaan. golaha deegaanka degmada Burco wuxuu wax ka bedel ku sameeyay 2022 bishii 11aad. wax ka bedelka golaha deegaanku ku sameeyay soo jeedinta waxa yeeshay guddiga dhaqaalaha golaha deegaanka guddiga dhaqaalaha. taariifadu ama qiimahaasi waa xisaabaad buu ku fadhiyaa boqoleeyo la yiraahdo kala duwan. markii taariifadaas la ansixinayay soo jeedinta golaha guddiga dhaqaalaha lahaa goluhuna uu ka dooday waana la ansixiyay. inta aan la dhaqan gelin ayaa doodi ka furanta iyadoo cashuurtaasi aanay dhaqan gelin ayaanu qaybinay bulshada qaybadeeda kala duwan baanu kala tashanay waanu daabacnay waanu dhiibnay. tala bixintii ay ka soo celiyeen waxa ay sababtay iyo dib u eegis in lagu sameeyo taariifadaas oo dib loo celiyo inta aanay dhaqan gelin markii la ansixiyay. markii labaad aanu dib u fadhiisanay in baasha dib loo celiyo dadkii ka soo horjeeday waxa kamid ahaa xildhibaan Axmed Cabdi Aadan oo golaha deegaanka kamid ah sidoodii hore lagu hayo laakiin nasiib darro maanta annaka nagu eedeynay. marka golaha loo soo bandhigo golaha uu codeeyay gudoomiyuhu ma codeeyo gudoomiyuhuna ma ansixiyo golaha ansixiya. marka la ansixiyo waa la daabacaa xogayaha lagu wareejiyaa fulin bay gashaa. taariifadaasi marka waxa cadeyn u ah inay tahay sharci goluhu ansixiyay oo baaskareeyay oo dabeetana la daabacay. waxaanu si cad u cadeynana una beeninayna xisaabteedii iyo xeerkeedii dacwadeeduna golaha taala in horta taariifadaas tahay mid sharciya golaha deegaanka degmada Burco oo baaskareeyay 3 biloodna la qaadayay. dakhligu hadaba marka uu soo xaroonayo Axmed Cabdi Aadan saaxiibkeeda badan oo gaar maayirka u jeediyay de waxay cadeynaysaa dawladnimadu aqoon bay leedahay nidaamka ku shaqeeyay shirkad gaar ah. wuxuu hadlayay sidii wax labadeeda meherad shuraakaay isugu jirto oo ka xisaab bixiyo xagaad geysay halka caynkan iyo sidii de maxkamad taaganahay. iska daa Axmed inuu xisaabaadkaas maanta leeyahay markii la ansixinay sida uma fahansanay isagoo waliba ka kacay caro uu ka qabo ah in taariifada aan dhaqan gelin hore ansixinay markii labaad aanu dib u celinaynay carana kaga kacay afartii iyo barkii galanimo anagoo gelin hore ilaa gelin dambe u shirayno kala kici weynay de maragay leedahay wana la duubaa cadeynteedana waa la soo bandhigay. iminkana diyaar baan mar labaad in aan wixii furfurno arrimahaasina faham bay u baahan yihiin uma baahna la isku ambaareeyo waliba xal baan ka bixinayaa walaaladayna diyaar baan u ahay wax kasta sharciga aniga ay xidheen inaan miiska dushiisa ku naqsano golaha aanu isugu nimaadno aanu ka wada hadalno. annagu sharcigaanu u aanahay daacad maxkamad iyo wasaarad iyo hanti dhowr meel walba ka garbaxayna waana yaalaan xisaabaadkii hanti dhowrka guud iyo dawladda hoose sharci bay ku shaqeysaa. laakiin qofku dawladnimada inuu fahmo ayaa ka horeysa in lagu xisaabtamo in la fahmaa ka horeysa. war dawladna waraaq buu ku yaalaa warbaahinta kuma yaalo saxiiyo iyo shaambado iyo sharci buu leeyahay golo baarlamaan iyo golo deegaan iyo golo wasiiro ansixiyaan. saddexdaas sharci baa ka shaqeeya sharci madaxweynuhu soo saaro golaha wasiiradu baaskareeyaan iyo sharci golayaasha baarlamaanku baaskareeyaan iyo sharci ay sameeyaan golayaasha deegaanku. war dawlad waraaq buu ku yaalaa almiidaan waasac bulshada waxaan ka codsanayaa walaalayaal qarabkiina u baahanahay. cashuurtu waa asaasi waa tiirka koowaad ee dawladnimada haddaanu waxaan aan qaadin saarin ilaahay ha naga jaro. agaasimaha gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali Daalin ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay cashuurta ay dawladda hoose ee Burco qaado. waxaan soo sheegay dadweynaha cashuurtu inay tahay horta sharci iyo nidaam ay ku soo baxdo. cashuurtu waxay ka timaadaa golayaasha deegaanka oo ansixiya iyo ka timaadaa meeyarna kama timaado xildhibaan gaarana kama timaado golaha deegaanka oo isku raaca majority-giisu iyo cashuurta lagu ansixiya. wasaaradda arrimaha gudaha waa loo soo gudbiyaa 3 gole deegaan baa jira dhamaantood waxay cashuurta soo ansixiyeen xafiiskayga way yaaleen. halka hadal kama jiro wax ka dambeeyay oo ka soo baxay oo sharci la bedelayna gaar ahaan Togdheer ama Burco wasaaradda arrimaha gudaha ma soo gaarin.
oo anagu ma hayno sharciga ay soo saareen golaha deegaanka ee cashuurta wax bedelay oo golihii ka soo baxay ma hayno. Cabdirashiid Timir, Home Cable TV, Burco.